Filimkani waxa uu ku bilaabanayaa San Francisco sanadkii 1981. Chris waa nin dhalay hal cunug waxa uuna isku dayayaa inuu ku noolaado isagoo iibinayo qalabka lagu cabbiro lafaha ee la qaadi karo. Subax kasta wuxuu wiilkiisa Junior geeyaa meesha carruurta lagu xanaaneeyo wuxuuna booqdaa isbitaallo badan si uu u iibiyo qalabka. Nasiib darro aad bay u adag tahay in la iibsado sababtoo ah waa kuwo aan loo baahnayn oo qaali ah. Marka uu bas ka raaco waxa uu inta badan la kulmaa nin waalan kaas oo mashiinka uu wato ugu yeero mashiinka waqtiga. mararka qaarna Chris waxa uu u baahan yahay inuu maqnaado muddo dheer si uu u iibiyo qalabka waxa uuna xaaskiisa Linda u sheegaa inay soo wado wiilkooda Junior. Tanina waxay had iyo jeer ka xanaajisaa iyada sababtoo ah waxa ay ka shaqaysaa laba shaqo si ay qoyska u caawiso. Habeenkii fiidkii Chris waxa uu guriga ka helay baal lagu magacaabo Cube kaas oo midabo badan leh. Xaaskiisa Lindana waxay weydiisay inuu bixiyo canshuurta laakiin Chris waxa uu u sheegay inuu dalban doono waqti dheeri ah si uu u bixiyo. Laakiin taas xaaskiisa ayay kasii xanaajinaysaa. Habeenkaas Chris waxa uu ku ciyaarayay Cube si degdeg ah ayuuna u xalinayaa. Maalintii xigtay Chris isagoo ku jiro socodkiisii iibka ah waxa uu arkay nin ka soo baxayo gaari sports oo qaali ah sidoo kalena qurxoon. Chrisna waxa uu weydiiyay waxa uu ka shaqeeyo ninkana waxa uu jawaabay inuu yahay ganacsade. Sidoo kalena waxa uu weydiiyay inay qasab tahay in ay jaamacad aadaan dadka si ay shaqadan u helaan. Laakiin ninka waxa uu sheegay in aanay daruuri ahayn waxa ay kaliya u baahan yihiin in ay tahay inay ku fiican yihiin kirooyinka. Chrisna markii uu arkay sida ay shaqaalaha ugu faraxsan yihiin shirkadda waxaan arkaynaa inuu naftiisa la rabo noloshaas. Waxdii xigtay Chris waxa uu u sheegay Linda inuu soo daahi doono sababtoo ah waxa uu tagi doonaa shirkad si uu shaqo ugu dalbado. Lindana waxay u aragtaa wax lagu qoslo oo ay ku maadsato riyadiisa aan xaqiiqda ahayn. Laakiin Chris waxa uu sheegay in ay sidaas ula hadlin isagoo kiciyay muran. Markii Linda u sheegtay in lagu leeyahay 2 bilood oo kiri ah oo la rabo inay bixiyaan muddo kadib. Dabadeed Chris waxa uu soo aaday shirkad si uu shaqo ugu dalbado. Shirkadana waxa ay kaliya qaadataa 20 qof 6 biloodba. Laakiin hal qof oo kaliya ayaa hela shaqada. Isaga oo doonaya inuu u ekaado mid wanaagsan waxa uu ka tagaa sawirka. Kadib gabadha wadada ku heysaysa ayuu lacag siinayaa si ay ugu ilaaliso qalabka. Markii uu gudaha u soo galay Chris waxa uu bilaabay inuu maqlo tafaashiisha shaqada uu helay. Laakiin waxa uu silma filaan ah daaqada ugu arkay gabadhii uu qalabka u dhiibtay oo la baxsanayso. Chrisna isla markiiba uu soo baxay waxa uuna bilaabay inuu ceersado gabadha. Laakiin gabadha way ka baxsanaysaa iyadoo fuushay tariinka. Maalintii xigtay Chris waxa uu xaaskiisa u ballan qaaday inuu iibin doono iskaanka. Si kastaba ha ahaatee waxa uu u socdaa shirkadda si uu u geeyo foomkii uu buuxiyey. Waxa uuna rabaa inuu shakhsi ahaan ugu geeyo maamulaha waaxda kaas oo lagu magacaabo Jesse uu ugu sheego wax naftiisa ku saabsan oo u keeno fikrad wanaagsan. Laakiin Jesse uu degdegsanaa waxa uuna u ballan qaaday inuu mar kale soo wici doono. Dabadeed Chris waxa uu sikadiis ku arkay gabadhii qalabka ka xaday iyo saaxiiskeeda. Chrisna isagoo xanaaqsan waxa uu bilaabay inuu ceersado maadaama uu lacagtiisa oo dhan qalabka ku bixiyay. Dhakhaatiirta isbitaalka waxay u arkaan iskaanka inuu yahay mid raaxo aan loo baahnayn. Laakiin Chris haddii uu iskaanka waayo waxay ula mid tahay inuu lumiyo cuntadii uu hal bil ku noolaan lahaa. Orod badan kadib Chris waxa uu ku guuleystay inuu fuulo baska ay saaran yihiin qalabka ayuuna dib ugu soo ceshanayaa. Markii uu guriga ku soo noqdo halkii uu ka iibin lahaa iskaanka xaaskiisa way ka xanaaqaysaa maadaama uusan iibinin. Laakiin waxba ma oranayso sababtoo ah maalintaas waxay ahayd dhalashada wiilkooda Junior waxayna rabtay inuusan murugo dareemin. Labadooduba waxa ay lacag u gooyeen si ay ugu iibsadaan kubad koley ah. Waxayna ogaayeen inuu aad ugu farxi doono. Junior markii uu ku mashquulay kubadiisa cusub Linda waxay u sheegtay si cad inay ka xanaaqsan tahay mas'uuliyad deeradiisa iyo sababta uu soo iibiyay qalab aan muhiim ahayn halkii uu mudnaanta siin lahaa baahiyaha qoyska. Bil kadib Chris waxa uu aaday Jay oo uu weydiiyay wax ku dhacay codsigiisa. Laakiin Jay uu degdegsanaa Chrisna waxa uu iska dhigay inay isku meel u socdaan si ay hal taxi u wada raacaan. Markii ay socdeen Chris waxa uu isku dayay inuu Jay ku qanciyo isagoo ka sheekeynaya xirfadiisa iyo wax uu ku fiican yahay wax uuna rabay inuu soo jiito dareenkiisa. Laakiin Jay ma uusan dhageysanin hadalka Chris waayo wax uu ku mashquulsanaa kubadda midabada leh ee Cube oo uu isku dayay inuu xaliyo. Laakiin Chris ayaa ka qaaday si uu asiga u xaliyo. Marka uu tagsiga yimaaday meesha uu Jay u socday Chris ayaa si dhaqso ah u dhameeyay xalinta Cube-ka taas oo Jay aad ugu yaabisay. Laakiin Jay waxa uu tagsiga ka baxay isagoo aan lacag bixinin. Chrisna waa inuu bixiyo sidaas ka cad Jay wax lacag ah ma haynin. Sidaas darteed Chris ayaa ku khasbanaaday inuu bixiyo. Laakiin Chris markii uu boorsidiisa fiiriyo lacag ku filan kama helayo. Markii gaarigii istaagay Chris ayaa silma filaan ah ugu degay oo orday taas oo keentay in darawalkii tagsiga uu ka daba ordo. Chris oo quusa ayaa ku orday saldhigga
tareenka isagoo rabay inuu ka baxsado wuxuu galay tareenka. Laakiin markii uu gudaha u galay albaabka tareenka ayaa si xoog ah gacanta ugu xidhmay iskaanka ayaana ka dhacaya taas oo sababtay inuu jadwalkiisii dib u dhaco. Markii uu wacay xaaskiisa Linda si uu raaligelin ugu bixiyo aad ay uga xanaaqaysaa sababtoo ah shaqada ma aysan aadin si ay Junior u soo wado lacagtaasna aad ay ugu baahnaayeen. Tanina waxay noqotay dhibkii ugu dambeeyay ee ay u dulqaadan karto sidaa darteed waxay u sheegtay inay isaga tagayso oo ay Junior hore u wadanayso. Chrisna hadalkaas ayuu ka xanaaqaya wax uuna soo cararaya guriga. Laakiin goor dambe ayuu yimid Linda mar hore ayay baxday iyadoo Junior hore u wadatay iyo dhammaan alaabteedii. Chrisna waxa uu wacay Jay kaas oo u sheegay inuu qorto lambarkiisa xafiiska si uu ugu waco biri oo uu banaan shaqo u sameeyo. Chrisna qalinka ayuu waynaya wax uuna isku dayayaa inuu lambarka xifdiyo. Dabadeedna waxa uu orday dukaan meesha ka dhow si uu warqad ugu qaato oo uu ku qorto. Subaxdii xigtay Chris waxa uu aaday xarunta carruurta lagu hayo si uu Linda ugala hadlo wixii dhacay. Laakiin Linda waxay u sheegtay inaysan ku faraxsaneen noloshani. Chrisna wuu aqbalay inay isaga tagto laakiin wax uu ku adkaystay inaysan qaadan karin Junior. Ugu dambeynna waxay ku heshiiyeen inay ilmaha isku beddelaan. Marna uu Chris la joogo marna uu Linda la joogo. Markii dakhliga Linda meesha ka baxay xaaladii dhaqaale ee Chris way ka sii dartay. Ugu dambeynna mulkiilaha guriga oo ka daalay Chris oo kirada ku leh ayaa yimid subaxdii si uu ugu wargeliyo inuu ka guuro guriga maadaama uu maalintaas keeni doono rinjiilayaal. Chrisna wuxuu ku dhaartay inuu lacagta bixin doono mar dhow sidoo kalena uu asaga rinjiyeyn doono guriga. Sidaa darteedna mulkiilaha wax uu siiyey isbuuc dheeri ah. Maalmo kadib Chris oo darbiyada guriga rinjiyeynayo ayaa waxaa guriga u yimid laba askari ah kuwaas oo u waday saldhiga si uu u bixiyo ganaaxyadii lagu lahaa. Nasiib daro sarkaalka ayaa u sheegay in la xaqiijin doono saacadii 3:15 subaxnimo. Sidaa darteed waa inuu habeenkaas ku bariyaa jeelka. Chrisna waxa uu isku dayay inuu u sharxo inuu biri subax leeyahay wareysi shaqo balse cidna ma dhegaysanin hadalkiisa. Laakiin hal wicitaan oo kaliya ayaa loo ogolaaday asagana Linda ayuu ka codsaday inay Junior soo kaxayso. Subaxdii xigtay Chris waa la sii daayay balse waxa uu ku dhawaaday inuu daaho. Sidaa darteed waxa uu si toos ah ugu cararay goobta wareysiga isagoo xiran dhar duug ah. Marka uu yimid shirkadda guddiga wareysiga ayaa ka yaabay dharka uu ku yimid. Sidaa darteed Chris ayaa u sharxay xaaladiisa waxaana Jay u cadeeyay in markasta uu horay u arkay Chris uu xirnaa dhar aad u fiican. Inkasta uu dharkiisa duug yahay Chris waxa uu ahaa qof qosol badan sidoo kalena caqli badan isla markaana hadal wanaagsan ku hadlaya taas oo sababtay inuu ka tago raad aad u wanaagsan. Markuu wareysiga dhamaaday Jay ayaa u imaaday Chris si uu ugu hambaliyeeyo balse Chris wuxuu ugu jawaabay Jay inuu ka fikirayo booska shaqada maadaama uu ogaaday inay tahay internship aan mushaar lahayn iyo xaaladiisa nololeed oo isbedeshay. Jayna wuxuu ku dhiirigelinayaa inuu sii wato isagoo u ballan qaaday inuu booska qof kale aanu siin doonin ilaa uu Chris jawaab ka bixiyo isla markaana uu fiidkii wici doono. Fiidkii dambe Linda waxay soo celisay Junior iyadoo u sheegtay inay u socoto magaalada New York sababtoo ah walaasheed wiilka ay la socoto ayaa ka furayo makhaayad waxaana suuragal ah inay shaqo ka hesho halkaas. Chris ayaa u sheegay inuu Junior la joogi doono maadaama uu ogyahay in Linda ay si fiican u daryeeli karin isagoo ka dhiiraday go'aanka Linda ee ah inay sameyso wax walba ay rabto. Chrisna wuxuu iyada u sheegay arrinta internshipka taas oo ka sii xanaajisay. Kadib way ka tagtay markay baxday Chris waxa uu wacay Jay wax uuna aqbalay shaqada. Maalintii xigtay Chris iyo wiilkiisa waxay u guureen hotel meesha ka dhow si ay meesha muddo gaaban u joogaan oo uu ka caawiyay saaxiibkiisa maadaama ay ahayd sabti. Chris wuxuu wiilkiisa u waday inay kubad kole ciyaaraan. Wiilkiisa Juniorna waxa uu u sheegay inuu doonayo inuu noqdo ciyaaryahan xirfad leh. Chris ayaa u sheegay in dadka badankood aysan gaadhin heerkaas balse markii Junior uu niyad jabay wax uu ku dhiirigeliyay isagoo u sheegay inuusan weligiis ogolaanin qof u sheegay inuusan wax samayn karin xitaa isaga haddii uu sidaas ku dhaho. Dabadeed waxay aadeen isbitaalka si ay iskaanka u iibiyaan. Ugu dambeynna way ku guuleysteen inay iibiyaan taas oo ka dhigan inay heleen lacag yar oo ay ku sii noolaan karaan maalmo kale. Chrisna wuxuu aaday maalintii ugu horeysay ee tababarka shaqada halkaas oo uu ku bartay ganacsiga. Wuxuuna u shaqaynayay si adag isagoo isku dayaya inuu cadeeyo inuu yahay qofka ugu fiican booska shaqada isagoo iska ilaalinaya inuu qof u sheego inuu faqiir yahay. Inta lagu jiro xiliga qadada Chris waxa uu magaalada ku arkay maamulihiisa Mr. From wuxuuna bilaabay inuu la sheekaysto isagoo raba inuu ka dhaweeyo fursadaha shaqada laakiin wuu joojiyay hadalkii markii uu arkay ninkii waalnaa oo wata qalabkii Skyerka welina u maleeyo inuu yahay mashiinka waqtiga. Chrisna isla markiiba waxa uu bilaabay inuu ka daba ordo isagoo dhex maray wadooyinka iyo gaadiidka balse waxaa si lama filaan ah ugu dhacay gaari waxaana ka lumay ninkii iyo mid ka mid ah kabihiisa. Markaas ayuu xafiiska ku soo laabtay isagoo iska dhigayo inaysan waxba ku dhicin. Maalmo
kadibna Chris waxa uu bilaabay inuu qabto adeegyo xafiiska maamulaha Frankish isla markaana uu waco macaamiil si uu ugu qanciyo inay heshiis la galaan. Laakiin dadaalkiisa wax natiijo ah kama soo bixin, sidoo kalena xaaladiisa nololeed way ka sii dartay. Sidoo kalena Chris waa inuu shaqada ka baxaa goor hore si uu Junior u soo qaado, taasoo ka dhigtay inuu shaqada dadka kale ku qabto waqti ka yar. Taasi waxay ku khasabtay inuusan taleefan ka dhigin, sidoo kalena biyo cabin ama musqusha aanu aadin. Wuxuuna ka fogaaday maamulaha hoteelka sababtoo ah waxa uu ku lahaa lacag deen ah. Wuxuuna Junior la tagi jiray isbitaalada maalmaha fasaxa si uu iibiyo qalabkiisii ugu dambeeyay. Maalin ayuu go'aansaday inuu liiska shaqada ka bilaabo meel kale si uu u dedejiyo. Wuxuuna sameeyay wicitaan oo uu wacay Mr. Ribbon oo ah maareeyaha maalgelinta ugu sareeya. Ribbon wuxuu ku amray inuu 20 daqiiqo gudahood ugu imaado isagoo la yeeshay balan degdeg ah. Chrisna wuxuu isku dayay inuu si degdeg ugu baxo dhismaha, laakiin Frankish ayaa joojiyay oo u sheegay inuu gaarigiisa meel kale dhigto. Markuu gaaray xafiiskii Ribbon waxaa loo sheegay inuu baxay maadaama uu Chris soo daahay. Subaxdii xigtay Chris waxa uu aaday guriga Ribbon isagoo iska dhigaya inuu halkaas ku soo maray, wuxuuna ugu mahadceliyay fursadda mar kale ayuuna raali geliyay. Kadibna waxa uu u sheegay inuu Junior u kaxaynayo ciyaarta kubadda cagta. Ribbon ayaa u sheegay isaguna inuu wiilkiisa halkaas u wado, wuxuuna ku casuumay Chris iyo Junior inay la tagaan qaybta VIP-da. ayagana way ogolaadeen. Inta lagu jiro ciyaarta Chris waxa uu isku dayay inuu Ribbon ku farciyo iibka, laakiin inkastoo Ribbon oo u sheegay inuu Chris jecel yahay haddana ma daneynin hadalkiisa. Si kastaba ha ahaatee Chris waxa uu helay kaararka ganacsiga ee saaxiibada Ribbon oo hodan ah, kuwaas oo uu muujiyay xiiso. Toddobaadyo ayaana ka soo wareegtay isagoo Chris ku dadaalay inuu isku dheelitiro tababarkiisa iyo qalabka scannerka iibintiisa. Ugu dambeyntiina maalin ayaa timid oo wasaaradda canshuurta ay ka qaaday lacagtiisii bangiga sababtoo ah canshuurta aan la bixin, taas oo ka dhigtay inuu noqdo mid lacag la'aan ah. Isagoo niyad jabsan ayuu Chris lacag weydiistay saaxiibkiisii hore oo uu lacag hore u siiyay, balse saaxiibkiisa waxa uu sheegay inuu hore uga celiyay maadaama uu ka caawiyay guuritaanka. Chrisna aad ayuu u xanaaqay, laakiin saaxiibkiisa albaabka ayuu ka xirtay. Kadib Chris waxa uu wiilkiisa u kaxeeyay jardiinka, waxa uuna halkaas ku arkay ninkii waalnaa oo wata scannerkii. isla markiiba waxa uu bilaabay inuu ka daba ordo oo uu ka soo qaatay qalabkiisa, laakiin qalabka aad ayuu u xumaaday. Chrisna wuu nadiifiyay isagoo isku dayay inuu ka iibiyo dhakhtarka, laakiin qalabka ma shaqaynin. Markii Chris iyo Junior hoteelkoodii ku noqdeen waxay arkeen alaabtoodii oo banaanka taala iyo qufilkii oo la bedelay sababtoo ah wax lacag ah ma bixinin. Chrisna waxa uu isku dayay inuu furaha jibiyo oo daaqada fura, laakiin wuu ku guuldareystay, taas oo micnaheedu tahay inay hadda yihiin guri la'aan. maadaama saaxiibkiisa uusan weli albaabka u furin, Chris wuxuu wiilkiisa u qaaday saldhigga tareenka. Intay halkaas joogeen Chris ayaa u sheegay wiilkiisa Junior in scannerka aanu ahayn mashiinka waqtiga sidii uu ninka waale hore u sheegay. Chris si uu qalbiga ugu qaboojiyo ayuu wiilkiisa ugu sheegay maadaama uu ka fikirayo. kadibna Chris ciyaar ayuu la sameeyay isagoo iska dhigaya inay waqtiga dib ugu laabteen oo ay arkaan dinosaur. kadibna Chris waxa uu dhahay nin god ku nool waxa uu u baahan yahay god. markaas ayay galeen musqusha saldhigga tareenka, albaabka ayayna kor ka xirteen. habeenkaasna halkaas ayay ku hoydeen iyagoo toilet paperka sariir ka dhigtay. Junior markii uu orday Chris waxa uu bilaabay inuu ooyo. maalintii xigtay waxay tageen xerada guri la'aanta, balse waa loo diiday sababtoo ah waxay kaliya u adeegaan haweenka iyo carruurta. si kastaba qof ayaa u tilmaamay xero kale, markaas ayay orod tageen si ay ugu mid noqdaan, maxaa yeelay safka ugu dheeraa boosaskuna waa kooban yihiin. nasiib wanaagna waxa ay heleen markuu 4 boos oo keliya haray. nin kale oo guri la'aan ah ayaa isku dayay inuu booska ugu dambeeyo xoog ku qaato, laakiin si dhaqso ah Chris ayaa ula dagaalamay. kadibna ilaalada ayaa aragtay in ninka khiyaano wato, sidaas darteed Chris ayaa helay booskii ugu dambeeyay. xerada dhexdeeda Chris waxa uu isticmaalay iftiin yar si uu u hagaajiyo scannerkiisa iyo in uu barto imtixaanka internshipka. markasta oo uu shaqada aad u watay alaabtiisa oo dhan, wuxuuna u sheegay shaqaalaha sheeka been ah oo uu daboolaya shandada uu wato. maalmo kadib Chris waxa uu helay qaar ka mid ah macaamiil cusub isagoo adeegsanayo kaararkii oo horey u aruursaday. markii la gaaray maalintii imtixaanka Chris aad buu u welwelsanaa, laakiin weli si degdeg ah ayuu ku dhameeyay. isagoo baxaya wax uu silma filaan ah ugu dhacay Mr. From oo taksi ka soo degay. From oo degdegaya ayaa ka codsaday Chris inuu siiyo $5 oo uu taksiga ku bixiyo. inkastoo Chris aanu awoodin inuu lacagtaas iska siiyo,
haddana wuu siiyey si uusan ugu muuqanin qof xun. Taas darteed ayuu ugu daahay wuxuuna waayey booskii xerada, taas oo keentay in isaga iyo wiilkiisa ay haweenkaas ku goydaan saldhigga tareenka. Maalintii ku xigtay Chris waxa uu dhiig ugu deeqay qof kale si uu lacag yar u helo, taasna waxa uu ka iibsaday qayb uu iskaanerka ku hagaajinayo. Haweenkaasna way ku guulaysteen inay waqtiga xerada ka gaaraan. Ugu dambeyntiina wuu hagaajiyey iskaanka kadibna wuu iibiyey. Si uu wiilkiisa farxad ugu sameeyo, Chris waxa uu geeyey hotel haweenkaas oo dhan. Labaadka isbuucaasna waxay ku qaateen xeebta si ay waqti wada jir ugu nastaan. Maalintii ugu dambeysay ee internshipka, Chris wuxuu kula kulmay Jane musqusha shirkadda. Jane wuxuu uga hambalyeeyey shaqadii fiicneed iyo macaamiishii uu keenay. Kadib Chris waxaa looga yeeray xafiiska Mr. From, halkaas oo loogu sheegay inuu helay shaqadii rasmiga ahayd ee muddada dheer uu kuriyoonayay. Fromna waxa uu celiyey $5 uu ka qaatay maalintii hore. Markii uu dhismaha ka baxay, Chris waxa uu bilaabay inuu ooyo, isagoo sheegay in tani tahay qaybta noloshiisa ugu farxadda badneed. Wuxuuna aaday inuu wiilkiisa soo qaato isagoo si adag hab ku siiyey, isagoona diyaar u ah nolol cusub. Dabadeed Chris Garner dhab ahaantii nolosha dhabta ah waxa uu sameeyey shirkad weyn oo maaliyadeed malaayiin ayuuna ka sameeyey. wax uuna qoray buug si weyn loo iibiyey oo ka sheekeynaya waayihiisa nololeed. Filimkana waxaan ka baranaynaa haddii naftaada aaminto oo dadaasho waxaad ka gudbi kartaa caqabad kasta. guushana ma ku timaada si fudud, natiijadana waa dadaal joogto ah iyo himilo cad. xitaa xaalada adag, rajo iyo hiigsiga wanaagsan waxay horseedaan isbedelka nolosha. filimkeenan waxa uu dhammaanaya adigoo muuqaalka like saaray, youtube-keenan ku soo biiray si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xigo aan soo dhigi doono. inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xigo maca salaama.